dhammaan arrimahaaga u bandhig Allah subxaanahu wa tacaala. Allahna ku ammaanayso dhammaan arrimahaaga oo waxaad tidhaahdaa: Rabbiyow, waxaan kuu dhiibtay arrinkayga iyo dhammaan wixii aan haystay oo dhan. Allah isaga keliya ayaa awooda khafiifinta culayskaaga, keliya isaga ayaa hagaajin kara dhammaan arrimahaaga. Jannada laguma arkayo quustii qofkii faqiirka ahaa, laguma arkayo sidoo kale kedadii iyo isla weyninkii qofkii hodanka ahaa, laguma arkayo qof baahan oo gaajaysan, lamana arkayo mid la soo buriyey oo hoy la'aan ah. dhammaan dadku jannada dhexdeeda waa ay faraxsan yihiin, waana hodan, yacni kuwa aan haba yaraatee wax baahiya qabin. Rabbiyow naga yeel ehelkeeda oo nagu irsaaq camal kasta oo noo dhowayn kara jannada. Xuska Alle wuxuu sabab u yahay dhammaan waxyaabaha qurxoon, si ay kuula qurxoonadaan dhammaan arrimahaaga, kuwaasi oo ah kuwa aan caragelinin Allah. Haddaba ku dadaal xuska Alle oo carabkaaga mar walba xuska Alle ha ka qoynaado, sababtoo ah carab uu ka qoyan yahay xuska Alle iyo qalbi Ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa ku wardiya ma mashquulin kara shaydaanku. adigu oon ha u furin qalbigaaga shaydaanka si aanu ugu ciyaarin oo aanu uga dhigan meeluu degan yahay. waxaad ku tidhaahdaa qofkii seexday isagoo murugtuna ay ceejinayso amay dhuunta ka xirayso, murugaduna ay mugdiga habeenkii ku dhex mirayso, waxaad ku tidhaahdaa u nax oo u tur qalbigaaga murugaysan, sababtoo ah qalbigan murugaysan wuxuu leeyahay Rabbi buuxinaya kana buuxinaya iftiin, cukanaysiinaya oo ka dharjinaya dhammaan waxa uu qalbigaasi u baahan yahay. u carar oo aad dhanka Alle subxaanahu wa tacaala. fafirruu ila Allah. mar kastoon ku mahdiya Allah waxaan ka helaa wax walba oo iraaligelinaya. Allahayow adigaa mahadsan, Rabbigaygow adigaa mahadsan ilaa aad raalli ka noqoto. adiga ayaa mahadsan markaad raalli noqoto, sidoo kale adiga ayaa mahad oo dhan iska leh raalli ahaanshahaas kadib.